waxaan rabnaa caafimaadka insha allahu tacaala 18 rugood oo caafimaad bay dowladda hoose Gabiley maamushaa shaqaalaha wax siisaa dawadana iyadu dhigtaa 12 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka baanu maamulnaa inay gaarno heer primary health care ay adeeg bilaasha shacabka reer Gabiley runtii lagu siin karo waxyaalaha runtii noo aan qorsheyno way ka mid tahay waxaanu rabnaa hooyada umulasa haddii ay ku dhibtooto oo ay adkaatay inay si caadi ah ugu dhasho xanaanada in shaqaaluhu number ay garaacaan oo fudud ay heli karaan oo halka loogu yimaado laga qaado ilaa iyo dhakhtarkii weynaa oo ay diyaar ugu tahay muxuu ahaayay in laga caawiyo dhalmadeeda inta harsan oo bilaash oo heegana oo aanu dhaqan gelinay caafimaadka runtii waxyaalaha ku soo kordhinay ee rabnay inaan siyaadkayna bay ka mid tahay hadda adeeg gurmad caafimaad oo degdeg ah baanu Gabiley ka dhex samaynay waxaan rabnaa inaan gobolka ku baahino shil hadduu gaari ku dhaco number la isla garanayo sida ka debdemiska in dadku ay soo garaaci karaan halka shaqaalihii caafimaadka iyo gaarigii wada socdaa ugu tagi karaan loogu soo qaban karo adeeg caafimaad intii loogu qaban karo dabeedna inta halka laga soo qaado loo soo gudbiyo isbitaalka adeegan gargaarka degdegii waa adeeg shaqeeya 24 saacadood waxa kugu diyaara shaqaale 24 saacadood ba shaqeynaya albaabkiisu ma xirmo shiftiya la kala galaa saddex shifti baa la kala galaa shifti A shifti B iyo shifti C saddex shifti waa la isku bedelaa waa adeeg dadka magaalada degan ay u bogeen kuna dhiiran yihiin nooguna hambalyeeyaan markaan hawshaas kala qabano